السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرين جنالك مركلة سودة وهذا أدي هذا وما سنتهين muuqaal kan waxaan rabaa wadahadaladii Mareykanka iyo Iran uga socday wadanka Switzerland oo horumar laga gaaray maalintii u horeysay dowladaha Qatar iyo Pakistan oo dhexdhexaadinaya arrintaasi maxay ka yiraahdeen Iran maxay ka tiri dowladda Mareykankuna maxay ka tiri madaxweyne ku-xigeenka oo wafdiga Mareykanka hogaaminayay oo shir jaraa'id qabtay isla markaana sheegay 4 qodob oo muhiim ah in la isku afkartay sidoo kale waxa wax laga weydiiyay shalay miyay wafdiga Iran bilaabashada wada hadalka isaga baxeen arrintaasi muxuu uga jawaabay sidoo kale waxa la weydiiyay lacagta ka xaniban Iran sidee loo siinayaa arrintaasi qaabka uu uga jawaabay Iran lacagto kaash ah miyaa la siinayaa mise waxyaabo kale ayaa loogu bedelayaa arrintaasina sidee ayuu madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka uga jawaabay waan idinla wadaagayaa sidoo kale madaxweynaha Iran oo bixi booqan doono dalka Pakistanna waan idinla wadaagaya balse marka hore soo dhawaada waxaan ognahay maalnimadii shalay ahayd in lagu waday wada hadallada farsamo ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran inay bilowdaan shalay waa tii wafdiga Iran la yiri waxa uu isaga baxay kulankii kadib markii hadalahan jabaada madaxweyne Trump uu bartiisa Truth Social-ka uu ku soo qoray muuqaalkan aad arkaysaan waa ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Shahbaz Sharif oo qolka wafdiga madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka uu hogaaminayay ay ku jireen ku soo dhaweynaya wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran Abbas Araghchi markii ay is salaameen kadib ra'iisul wasaaraha Pakistan iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Iran waxa uu isku dayay ra'iisul wasaaraha Pakistan in gacanta uu sii hayo isla markaana madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka oo meel gadaale taagnaa uu u yeero laakiin arrintaasi waa iska fujinaya wasiirka arrimaha dibadda Iran gacanta ra'iisul wasaaraha Pakistan kadibna waa uu dhaqaaqaya marka waxa la taagan ra'iisul wasaaraha Pakistan taliyihiisa guud ee ciidamada Qasim Munir indhaha ayuu taagaya ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan isla markaana gadaal dambe waxa laga arkayaa sida muuqaalka aad ka arkaysaan madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka oo isaguna xaaladdu siday u socotay halkiisa ka darsayay isla markaana arkaya wasiirka arrimaha dibadda Iran oo sii baxaya markaas kadib madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka waa uu soo dhaqaaqaya waxa uu u imaanayaa ra'iisul wasaaraha wadanka Pakistan Shahbaz Sharif iyo taliyihiisa guud ee ciidamada Qasim Munir iyagoo goobtii taagan sida aad arkaysaan indhaha ayuu taagayaa ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan waxa uu la yaaban yahay qaabka uu isaga fujiyay isla markaana uu dhaqaaqay wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Iran marka Iran waa tii shalay diiday in ay sawirro la galaan wafdiga dhinaca Mareykanka isla markaana ay isgacan qaadaan marka muuqaalkaasi ayaa la helay marka uu salaamo wasiirka arrimaha dibadda Iran ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan in ra'iisul wasaaruhu isku dayo in uu madaxweyne ku-xigeenka isagoo waliba gacanta wasiirka arrimaha dibadda haya inuu u yeero madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka uu iska fujiyay kadibna waa iska dhaqaaqay markii dambana saddexda kale ayaa isku yimid oo madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan iyo waliba taliyihiisa guud ee ciidamada Qasim Munir wax yar ayay wada hadleen markaas kadibna warbaahinta ayay halkaasi kula hadleen marka shalay sidaas ayay wax u dhaceen marka wada hadallo ayaa dib la isugu soo laabtay xalay ilaa iyo 18 saacadood oo isdaba jooga xalay waxa la isla gaaray ilaa iyo 1 saqda dhexe wixii ka dambeeyay ayay wada hadalladu ay soo gaareen marka wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Iran Abbas Araghchi waxa uu bartiisa X uu soo geliyay in wada hadalladii ay dhexdhexaadinayeen Pakistan iyo Qatar in Islam horumar weyn laga gaaray waxana uu sheegay in dagaalka Lubnaan in la soo gabagabeeyo ee qayb ka ahayd in saliidda iyo waliba petroleumka loo fasaxo Iran inay dhoofi karto ilaa iyo sanadkii 2018 caalamka ma aysan ka gadi karin sidoo kalena in go'doomintii Mareykanka uu saaray Hormuz la qaado iyo sidoo kalena in qaar kamid ah lacagtii laga xanibay Iran loo soo fasaxo sidaas ayuu sheegay isagoo xaqiijiyay sidoo kale in arrimaha laga wada hadlay ay kamid ahayd in lacagihii lagu horumarinayo oo dib loogu dhisayay wadanka Iran sidoo kale oo qaliijku ay bixinayeen la soo fasaxo laakiin tijaabada ugu weyn waxay ahayd uu yiri qalalaasaha ka taagan dhinaca Lubnaan sidii loo xalin lahaa sidoo kale waxaa jirta in ra'iisul wasaaraha wadanka Pakistan Shahbaz Sharif uu isaguna bartiisa X ku soo qoray uu ku bilaabay alxamdulillah waxana uu sheegay in wada hadalladii heerka sare isla markaana ka dhacayay Bergenstock oo ku taala Switzerland in horumar wanaagsan laga gaaray isla markaana la isla dajiyay road map ama qaab horey loogu sii socon karo
oo heshiiska kama dambaysa 60 maalmood gudahooda lagu gaari karo. Waxa uu mahad celiyey labada dowladood ee wada hadlaya Iiraan, Mareykanka, Qatar oo dhexdhexaadinta gacan ka geysanaysa, Switzerland oo martigelinaysa, dhammaanba wadamadaasi ayuu u mahad celiyey. haddaba marka xalay ilaa iyo shalay wada hadalladii la yeeshay kadib, madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa maanta shir jaraa'id qabtay. 4 qodob in la isku afgartay ayuuna sheegay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka. qodobka koowaad waxa uu yahay furitaanka marinka Hormuz, ayuu yiri in la sameeyo qaab haddii xitaa dagaal kale mar kale uu dhaco in marinka Hormuz uusan dib u xirmin. arrintaasi waxa uu yiri waa la isla afgartay, saliidda ama shidaalkuna sidii loogu talagalay uu marinkaasi Hormuz uu u maro. qodobka labaadna waxa uu sheegay arrinta Lubnaan iyo xabad joojinteeda. waxa uu sheegay haddii Xisbullah ay wax soo tuurto isla markaana Israa'iil ay ka jawaabto in dhammaanba dhinacyadu ay u tafaxaytaan sidii loo xallin lahaa khilaafkaasi, isla markaana gobolka looga dhigi lahaa mid nabada. waxauna sheegay marka in labadaasi qodob ay yihiin qodobada ugu horeeya ee la isku afkartay. isagoo ka hadlayeyna waxa uu yiri Yesterday was a very, very good day. We made a lot of good progress. We did exactly what we wanted to do, which is accomplish 4 things for the American people. First, we wanted to build a mechanism for keeping the Strait of Hormuz open. It is open. We've seen, of course, gas prices and oil prices come down, millions and millions of barrels of crude and natural gas flowing through the Strait of Hormuz that weren't flowing before. But we also wanted to make sure that we actually set up the coordination mechanism so that we could demine the Straits of Hormuz, so that when there are the conflicts that inevitably come up, we can make sure we work through them rather than that leading to escalation. And that is exactly what we did yesterday. Number 2, we also wanted to build a mechanism, a similar mechanism, for deconfliction for the regional ceasefire. As the President of the United States has himself said, sometimes these ceasefires just mean you're shooting a little bit less, but we wanted to make sure that we had the proper coordination set up so that if there is shooting, if Hezbollah fires at Israel or if Israel responds, if there are other conflicts that arise in the region, we're actually talking to each other and figuring out how to stop the shooting, how to make the region safer, our allies and everybody else. We set that up as well. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka JD Vance waxa uu shirkiisa jaraa'id ku sheegay in qodobka saddexaad ee la isku afkartay uu yahay in dowladda Iiraan ay ogolaatay in hay'adda dhinaca nuclear-ka u qaabilsan qaramada midoobay ee IAEA lagu casuumo waddankaasi Iiraan, isla markaana ay mar kale baaritaan ku samayso uraniumka ay bacrimisay Iiraan. waxaana taasi tallaabada koowaad ay u tahay yiri in Iiraan gabi ahaanba aysan hub nuclear ah aysan yeelan. waxaana uu sheegay sidoo kale qodobka afraad ee la isku afkartay inuu yahay in la sameeyay guddiyo farsamo kuwaasi oo toddobaadyada iyo maalmaha soo socda wada hadli doono. waxauna xaqiijiyey in 60 maalmood gudahood la filayo guddiyadaasi farsamada in uu ka soo baxo heshiis. waxa uu yiri hadda waxa aan guul ka gaarnay aasaaskii ayaan sameynay gurigiina weli ma aanan dhisin, laakiin ujeedkeena waxa uu yahay in aan guriga dhisno. sidaas darteed waxa uu sheegay in hadda horumar weyn laga sameeyay. dowladaha Qatar iyo Pakistan ayuuna u mahad celiyay maalintii koobaad ee wada hadalka, walow uu dheeraa ayuu yiri haddana horumarkaasi ayaan sameynay oo aasaaskii ayaan salka dhulka u dhignay. waa kan madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka oo mar kalena labada qodob ee dambe ee la isku afkartay ka hadlay. Number 3, we, and this is probably what we're most excited about as Americans, the Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country. That is a major milestone for the American people and the first step in permanently denuclearizing or permanently ending a nuclear weapons program in Iran. And that's exactly what we wanted to do. That's exactly what we asked to happen. We made a lot of great progress on other nuclear talks. And that leads me to the final thing that we wanted to accomplish, which is actually set up the process for the technical negotiations that will follow. Our teams working with the Iranians, the Qataris, and the Pakistanis made great progress yesterday. They will continue to work at the technical level with the teams here in Bergenstock. And then those technical negotiations are going to continue over the weeks and days to come. We wanted to set up a structure for that so that you could have proper political oversight, but obviously, as much as this place is very beautiful, I can't stay here for the next 60 days. I'm about to go back home to the United States, but the technical teams are going to be working with proper oversight to make sure that we're accomplishing the objectives that matter for everybody. So those are the things that we wanted to accomplish. We came here, we did exactly that. The way that I think about it is very simple. We laid a very good foundation for a successful final deal.
The final deal is the house. We set the foundation. We haven't built the house, but we've laid a successful foundation to get to a good place for the American people. dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka JD Vance markii wariyaashu ay su'aalaha weydiinayeen waxaa la weydiiyey dowladda Iiraan wafdiga ka socday shalay wada hadalka miyay ku hanjabeen inay isaga baxayaan mise waa isaga baxeen waxa uu sheegay in ay ku hanjabeen in ay isaga baxayaan laakiin waxa uu xaqiijiyey in haddii dowladda Iiraan wafdigeeda wax run ah aysan sheegin in madaxweynaha Mareykanka uu arrintaasi ka jawaabay aniguna waan ka jawaabaya shacabka Mareykankuna waa ay ka jawaabayaan ayuu yiri sidaas darteed waxa uu sheegay in shalay ay jirtay cilad yar oo farsamo sidaas darteedna la xaliyay isla markaana wada hadaladii ilaa ay xalay goor dambe soo gaaray in xal laga gaaray oo wada hadaladii ugu horeeyay ee la yeeshay ay miro dhal noqdeen waa kan isagoo su'aasha in Iiraan wafdigeeda shalay ay shirka isaga baxeen isagoo ka jawaabay. No, they didn't throw a wrench in the system. The thing with the Iranians, yes, they did threaten to walk out, or at least there were social media threats that they would walk out. But we were negotiating well past 1 a.m. yesterday, so they didn't walk out. And their technical team is still here in Bergenstock working with our technical team actually as we speak, though I imagine maybe some of them are taking a break to watch this news conference. But look, what we told the Iranians yesterday is when you guys engage in what us millennials might call trash talk, you can't expect the President of the United States not to respond and not to correct the record. So when they say things that aren't true, the President is going to respond to it. I'm going to respond to it. Americans are going to respond to it. When they make threats that aren't rooted in reality, they have to accept that the President of the United States is actually going to set the record straight. That's all that happened. So yes, there was a little bit of threatening, there was a little bit of whining, but at the end of the day, the talks continued and we made great progress. sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka JD Vance waxa la weydiiyay lacagta ka xaniban Iiraan lacagtaasi ma kaash ahaan ayaa loo siinayaa mise qaab kale ayaa loo siinaya oo dowladda Iiraan ay sheegtay in qayb ahaan loo soo fasaxayo arrintaasi waxa uu sheegay in Jared Kushner oo kamid ah wafdiga dowladda Mareykanka ay wada hadalada u dirtay in uu soo jeediyay halkaasina waxa uu yahay yiri in lacagtaasi horta hadii la dhiibayo ay dowladda Mareykanku ay ogolaato dowladda Qatarna ay ogolaato marka sidaas darteed waxa uu yiri halka Jared Kushner uu soo jeediyay waxay tahay in lacagtaasi dowladda Iiraan aan kaash ahaan loo siinin waxa uu yiri beeraleyda Mareykanka ayaa waxa looga iibinayaa digir galey iyo waliba qamadi shacabka Iiraan ayaana sidaas lagu siinaya waxa uu sheegay lacagtan hadii kaash ahaan loo siiyo Iiraan waxa laga yaabaa kooxaha argagixisada oo ay taageerto in ay ku maalgeliso sidaas darteed waxa uu yiri lacagtan si dadka Iiraan loogu caawiyo waxa lagu iibinayaa waxyaabahaasi beeraleyda Mareykankuna waa ay ka taajirayaan shacabka Iiraanna sidoo kale waa lagu qoodinayaa marka waxa muuqata in dowladda Mareykanku aysan doonin lacagtaasi kaash ahaan in dowladda Iiraan ay u siiso oo lagu iibiyo digir galey iyo waliba qamadi sidaasina shacabka Iiraan loogu geeyo haddaba waa kan isagoo arrintaasi ka jawaabay. We wanted to make sure that we set up a process where if we ever unfreeze Iranian assets, we can ensure that that money, that Iranian money, goes to help the people of Iran and not to fund terrorism. So Jared Kushner actually came up with a very interesting solution with the Qataris, where basically, again, if there is any frozen Iranian assets that are unfrozen, then we have approval over that process. The Qataris have approval over that process. And then the money would actually go to buy American soy, American corn, and American wheat for the benefit of the Iranian people. But fundamentally, what Jared and the Qataris and the entire team here in Bergenstock accomplished is, to me, a classic Trump deal, where if Iranian assets are ever unfrozen, they're going to go to make American farmers richer and to feed the Iranian people. That's a very, very good and very classic Trump deal that's great for our people, great for the people of Iran, and fundamentally, again, will contribute to this regional security architecture that we've built and that we're going to work very hard to ensure that it endures. ugu dambeyntiina madaxweynaha Iiraan Mas'uud Pezeshkian ayaa maalinta beriyaha waxa uu booqasho ku tagi doonaa magaalada Islamabad ee wadanka la sheegay booqashadaasi han maalin inay qaadan doonto xiriirka labada wadan ayay ka wada hadlayaan iyadoo aan ognahay in dowladda Pakistan ay hormuud u ahayd heshiiska isfahamka ah ee Mareykanka iyo Iiraan ay gaareen haddana wada hadaladan Switzerland ka socda ay dhaxdhaxaadinayso dhinaca waftiga farsamada ee dowladda Iiraan wada hadaladan uga qayb galayana waxa hogaamin doona wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ninka la yiraahdo
qaasim qaaribaabi iyadoo hadda la leeyahay ilaa iyo shalay 18 saacadood ayaa la wada hadlayay islamarkaana hadda qodobadaasi aasaaska ayaa la isku afkartay wadahadaladuna waa ay sii socon doonaan waan arki doonaa asxaabi waxyaabaha kasoo kordha aad iyo aad u mahadsantihiin intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idinla sida iyo nabadgelyo